إلهي بقى mahad سكان كeenay saakay inaynu saalixdeena iyo danaheena inagoo miyir qabna aan ka tashano sunnimaadno maxaa inala gudboon iraahno gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudugna wax iska weydiino Ilaahay baa saa mahadle inta ka bacdi ummadaha Ilaahay soo saaray oo may ummadana Maxamed baa ugu khayr badan sidii Sheekh Aadan baa inoo sheegay hadii xumaantana waa iska reebaan macruufka iyo wanaagana waa isamraan waa isfaraan taas waa waxaan ummadaha kaga duwanahay saakana waxaynu meeshaan u fadhino isugu nimid inagoo sooman oo hadii Ilaahay ku rooyahay Ilaahay cibaadadiisa ku jira oo bishii barakaysaneed ku jira inaan khayr iyo wanaag iyo tasliix ummadda aynu ka shaqeyno Ilaahay baa inaga ajirsiinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inta ka bacdi shirkani wuxuu daaran yahay saakayto 4 qodob oo soo noqnoqday oo gobolka Mudug ku soo noqnoqday sababahay u soo noqnoqdeen aan rabno inaan faahfaahin ka bixino guddiga amniga gobolku markuu isu yimidna aanu ismire 4 qodob waxay u baahan yihiin bulshadu mar dambe inay dib u fiiriso oo fiirintaasi waxa weeye laba arrimood baan uga dan leenahay waxyaabo badan oo deegaanka aan ka jirin oo soo kordhay wixii aynu ka yeeli lahayn iyo dadka dhibta wada intooda badan dad waxa weeye mashaakilaadka iyo dhibta iyo hawsha ay wadaan aan xagga rabbiga u fiirinayno ujeedooyin kale marka ujeedooyinka ay kale yihiin haddii qabaa'ilada iyo isimada iyo nabadoonnadu go'aan ka qaataan waa luqad ay fahmi karaan baan ismire luqad ay fahmi karaan waayo quraanka munazalka ah ay fahmi lahayihiino war xumaantana iska daaya wanaagana yeela oo dhaqanka wanaagsan bay fahmi lahayiin oo bulshada wada nolosheedii iyo wada noolaashihii iyo nabadgelyadii bay dareemi lahayiin marka in go'aamo ay fahmi karaan oo ay ka cabsan karaan la soo saara iyaduna nooc wacyigelin inay tahay oo aan u sheegno siday wax ku fahmi karaan ayadana waa qayb ka tahay waxa soo laabtay khilaafaadka dhulalka iyo dagaalada ay horseedaan 4 shay oo waxa jirta marka ku cusub gaalkacyo ayaamahan 4 shay oo ku cusub waxay tahay Soomaaliya markay burburtay waxa la sameystay nidaam qabiili ah loo kala burburay gaadiid baa la sameystay tiknika la sameystay hub baa la tabcaday xarb ahli baa dhacay gaalkacyo marka way ku raagtay xarb ahligi way ku raagtay dhowrkan sano hadda dambe ma ahe ayadu waxa weeye midiyeedu waa iska soo feysnaayeen waa u galaayeen marka horta dagaalkii waa joogsaday oo inaga iyo galmudug hadda wax dagaal waayaan inama dhaxdhaceen marka hubkii baa sidii horta loo haystaa meel lagu gaaciyo baa horta waxa weeye meel ku dareersha ragga baa subax walba taagan waa qodobka labaad waxa iyaduna soo baxday dhulkii xoolihii baa dhamaaday dhulkii baa lacag noqday baadiya laga soo wada yaacay sidii geela loo kala dhici jiray ama loo raacan jiray baa dhulka loo raacaa ama loo kala dhacaa habartiis hooyadiis dhaxalkeeda ninka qaday weeye ninkaan dhul qabsan 2 kilomitir ah lacag buu noqday waa la iibsanayaa waa lagu qayirayaa darooga la siisanayaa khamri baa la bartay ayaduna qayb cusub oo soo korortay weeye qaybta saddexaad oo soo korortayna waxa weeye daroogo aan jirin baa timid khamri baa soo yaacday waa la iib keensaday Ethiopia ka soo yaacday xataa dawladda deegaanka waa laga mamnuucay khamrida hadda waxa laga soo rartaa
gobolka wadoolla way mamnuuceen waa sidan oo kaleeto waxaa laga soo rartaa qabridaar iyo dhagax buur baa laga soo rartaa wadda goodir bay soo maraysaa dhulku waa dhul kontrabaan iyo dowladihii Ethiopia cadaadiska miran ahaa dhulku dhul wada wadooyin weeye waa dhaweydna waxaa la falay wadooyin jinifrey la yiraahdo kambaniyaal faleen meel kasta saas u yaacayaan waxay adoon ogeyn bay waxay soo galayaan sida kontaroolada looga ilaalinayo magaaladii waa iska daad oo dhibaata ayadana ka timi waxaa kaloo jiray magaalada waa dhaweyto madaxa dadka laga toogan jiray oo al-shabaab baa leen jirtay oo wixii markii ay yaraadeen dadkii waa soo laabtay ganacsigii baa soo laabtay noloshii baa soo laabatay takabur iyo kibir bay ayaduna dhashay oo waxa weeye ayagii baa dadkii isku soo jeestay markay soo laabtay horta waxyaabahaas waa waxyaabaha gobolka ku soo kordhay oo aan isleeyahay in wax laga qabto oo laga taataabto bay u baahan yihiin waaya qodobka khilaafaadka dhulka marka baan isdul taagnay khilaafaadka dhulka sidii aan u xallin lahayn oo aan wax uga qaban lahayn aan dhowr qodob iska niri ilaa 4 qodob 5 qodob kow in dhulka degmooyinka gobolka mudug ee deegaanka ah aan la dhisan karin la kala iibsan karin la isa siin karin ilaa si sharci ah يعني dhul sharci oo dawladda hoose sadar loogo ay bixiso dhul haysta mooyee lama kala gadan karo lama kala iibsan karo lama kala leesma siin karo waxa weeye dhul aan waxba ka jirin sharci loo haysan baa inta loo yaraa waxa leeyahay waa ka iibsaday isna waa ka iibsaday lacagtina waa shaqo hadhow waxa imaanaya mid kale to sharcina ma haystaan horta waxa la rabaa sharciyad baa loo baahan yahay dawladda hoose la tagaya ayadu sharci ha u samayso sharciyada markii dhul leh qaabkiisa la kala gadan karaa oo dawladda hoose inay sharci u leedahay kow waa qodobka koowaad qodobka labaad cid kasta oo qabta dacwo ama cabasho dhuleed inay hub soo qaadato oo sharciga gacanta ku qaadata maahe waa inay hay'adaha dawladda timaado waa inay saldhigga booliska timaado waa inay dawladda hoose ay timaado oo ay tiraahdo cabasho dhuleed baan qabaa markaas maxkamadda iyo sharci baa la soo gudbayaa si tartiib ah loo kala baxayaa laakiin haddii qori gacanta lagu qaato oo sharcigii la baalmaro dilalkii baa imaanaya waxaan ka hortagaynaa waa dilalka horta sidaan loo fahmaa la rabaa qodobka saddexaad qof kasta oo fuliya ama abaabula fidna dagaal rabsho la xiriirta dhul isagoo baalmaraya sharciga wuxuu madanayaa xabsi waa la soo xirayaa xabsiga marka hadduu abaabulo oo rabsho abaabulo oo rabsho dhuleed abaabulo horta waa la soo xirayaa marka la soo xiro maxaa ku xigaya qorigii wataa waa dagaalamayaa waxaan rabnaa in anagu dawladda aan la dirirnaa rabnaa waxay geystaan waa dushooda waxa meesha ka dhaco dhan waa dushooda haddii ay ku dhintaanna waxa weeye waa dushooda wixii khasaare ay geystaan ayaga loo raacanaya waayo waxay heli kareen dariiq sax ah fidnay abaabuleen ayagaa fidnadii mas-uulka ah qodobkaasna waa isla soo qaadnay qodobka shanaad oo aan isla soo qaadnay waxa weeye oo xagga dhulka ah dhulka ka baxsan magaalooyinka la degan yahay in la seeraysto oo seero sharci darra la samaysto cidii dawladii wax u qorshayso oo tiraahdo mashruuc baan meesha ka qabanaynaa beer baan ka waxaysanaynaa waa gaar oo waxa bixiya hay'adaha dawladda bixiya laakiin waxa mamnuuca magaaleyn cusub iyo seerayn baa sida mamnuuca waana wareegta madaxweyne oo ayaduna in sida loo ogaado baa la rabaa horta qodobka dhulka xalinta khilaafaadka dhulka horta intaas aan iska niri laakiin dhulalkii hadda taagnaa ama rabshaduhu ka soo dhaceen dariiq waxaa la marinayaa sharciga oo sharci baan soo geynaynaa maxkamadaha soo geynaynaa ayaguna wixii hadda taagan laakiin wixii soo kordha oo saaka ka dambeeya tilaabada inaan wada qaadano baa la rabaa waxaan isniri masaalix bay u tahay dan bay u tahay qodobka labaad waa mukhadaraadka
مخدراتكو وماندورية وحن كهالينو وماندورية وحن كهالينو ماندوريو هذا واحد اللي خمري وحن نغني أول حشيشة نبى حال شيء يوحي بتابوف ميال هذا وحصاب حياة طبعا هذا هالكلام قشري يا تابو بالي هذا دكان ما لو حمر بالغ كينا بالي يريو سيد طبعا كذي بهالكلام لو قشنا يا بالي يرو خمر دي لا دعي جري دلنا قفك ودن جري بابا لغا يلبحن انت واقعنا هيو كلا ويالي هالكاس قشنا يا وانا قلوب سخامية وهول هور تمت هل يعني ومشاكلات كسوكر لي كمثال مركا أرنكاس ماندوريها صدق قضبة قد بيسكوي دي بسكر راعي صدق ذا قضبة حوي قاديد كستا والله استعمال خمرقة يقولي كستا ولقي بيو أما لقول حقبته خمر ذا حشيش كيا وحيابها لمتك وحلا وريجي سدولد أو القاديد كمان كان قبنا دول وريجي تشريو هاوي محكمة حكومة ترتيب دنبيلياشة خمر ذا ولا حيل تري قاديد كان ولا وريجي لكن هذا مشكلة كلاوتين ليدي ورا بالوسو دجينها يا أور بالوسو رايا مقالدي بالكين هيا قرية لو دحقديا قرية لو دحقديا قاري هورتا maxay islaamaan hadii magaalada guri lagu dhaxgadayo gurigiina waxa la yiri maxkamad amar la'aan maxkamadeed lama gali karaa la yiri gurigi sidiisaba waade booliiskiis kama gali karaan guri villa baan lagu dhaxgadaya oo reer leeyahay hadii la gadana waxay dhahayaan $10,000 baa meesha noo dhaxtaalay oo laga xaday iyo bad bay la imaanayaan gurigayga waana lagu soo weeraray wiilayeen horta guriga khamrida marka lagu helo waxaan ka rabnaa odayaa inuu gaadiidka la mid noqdo hadii guriyaha khamri aan lagu gadin banaanada si caanaha ma laba fariisan karaa waa maya guri way ku jirtaa ee sandaqad guriyaha lagu gadayo iyo sandaqadaha lagu gadayo waxaan rabnaa gaadiidka oo kale inay noqdaan oo aan la wareegno in naloo ansixiyaa rabnaa waxaan rabnaa in cagaf gelino guriga oo dhan digada ka dhigno anaa hadda guriga leeyahay intaan la wareegno saakayto waa awoodnaa laakiin gebigiisa digada iyo dambaska haddaan ka dhigno meeshan aan niraahno iskool ha laga dhiso gurigu ka dhisnaa ama isbitaal ha laga dhiso ama MCH ha looga dhiso xaafadda waa ku filan tahay xaafadina anfac u soo kordhay bay noqonaysaa khamridiina waa ku yaraanaysaa qodobkaasna waxaan iska weydiinay qof kasta oo ka ganacsada ama cabba khamrida sharciga ayaa la horkeenayaa waana la xirayaa markii khamrida marka uu isagoo ka ganacsanaya ama cabbaya la soo qabto waa u dagaalamayaa wuxuu geysto iyo wixii loo geysto kulli mas'uuliyadiisa asaga qaadanaya qofkaas qof kasta ama koox kasta oo ka hor timaada hawlgallada ka dhanka ah la dagaalanka maandooriyaha khamriga xashiishka iyo wixii kale hadda aan sheegay magacoodana ma aqaan iyo wixii la midaba wax alla wixii gaaranaya waa dushooda oo cidna loo raacan mayo waa daalimiin weeye waxay geystaanna ayaga u qoolan لما تقولون يعني اللي بيجيسنا يعني سماها هيجا مسؤولية ده إسكاله وأيوه وحرام وضدك يضلك من الجليد ضدك أو في النقوة بكشقينيا أيضا وحيابها عن السنري وضياش وقوم مارنتان وي هوبكا أساقنا وحبان إسكوي ديني ودي قامني وقبرك وحبي إسكوي ديني هوبكا وحان إسكوي ديني يعني صدح قضبان إسكور عني waxaa mamnuuc ah wax hub ah nooc kasta oo uu yahay in lagu dhex qaato magaalada nooc kasta oo uu yahay wax hub ah waa mamnuuc in lagu dhex qaato magaalada waa qodobka labaad qof kasta oo duruufo amni aan uga maarmin hubka fudud wuxuu tagayaa hay'adaha dawladda waana sharciyeysanayaa waana loo sharciyeysanayaa qof kasta oo duruufo amni aan uga maarmin waa loo sharciyeynayaa ظروف أمني وأسقنا قال كعيتهم ظروف أمني هنا إيمان السلا إسكما هيو استولد هالك ينوجو ذا ترى وحين نكوّد بقينا وين مسكور قمنا أنا ودين دي منه هوبك ظروفها أمن الله يستمع واحد يدنا ماشى أسرعنا ورتينه وحوي وهوبك فوضى عوي هوب فوضى أنا قفت وطه يعني لو شرعيني واللوجي هاي نيك ظروف أمني هاي سي نيك كلا يسمعك مركا أنا هوب كورن دبلان كوين قفكي هوب شرعي أو قاتارنا
oo markii la qabto kaarkiisa uu la soo baxo booliiska waa hubkii waa hebel soco laakiin ninka raba khamrida ku difaacaya oo dhulka ku difaacaya oo boobka ku difaacaya oo gacan ku dhiglaha ku difaacaya hubka weeye hubkaan u dan leenahay oo magaalada khalkhalka iyo dhibaatada ka abuuraya qof kasta oo qaata hub aan sharci darro ahayn magaalada dhexdeeda dawladda ayaa kala wareegaysa haddii uu ku dagaalamo waa lagala wareegayaa hadduu ku dagaalamo wixii soo gaarana mas-uuliyaddeeda isaga iska leh wuxuu geystana mas-uuliyadda markasta isaga iska leh waayo iclaamkii saaka inuu baxo baan barabnaa qodobka afraad oo dilalka ah guddiga amnigu waxuu iska weydiiyey guddiga amnigu laba qodob buu ka soo qaatay dilalka xaqdarrada ah oo ka dhacaya guud ahaan gobolka mudug meel kasta waa ka dhacaa min saaxa ilaa garacad waa ka dhacaan wax gaalkacyo keliya ku kooban maahan barnaamijkaana kulligiin waa u dhintiin gobolka mudug oo dhan waa u dhintiin qofkii qof si xaq darraa ku dila waa qasaas waa dil weliba codsi yar baan hoosta uga daray oo aan isniri codsi kaga dhigo oo waxaan niri 5 sano qasaasta diyana lama kala qaadan karo laysmana cafiyi karo reer gaalkacyo aan u xeero markaas go-aankaas aynu codsano codsi hoosta kaga dhigo laakiin waa nagu adag yahay inaan nagu raacdaan baan codsanayaa 5 sano inaan diya la kala qaadan oo aan mag la kala qaadan oo la iscafiyinin ugu yaraan 5 sano baan rabnaa codsi ahaan baa marka waxaan niri odayaasha halkaas khiyaaraad baa ku jira shareecada ay banaysay culimadana kala tashada waxna iska weydiiya qodobka labaad oo dilalka aan ka soo gaaray waxa weeye aan iska weydiin gacan ku dhigluhu markuu wax kaysto waa cararaa reerkooda u galaa waa difaacaan dhalinyara isku xeerta waxaa la yidhahdaa hebel odayaashuna waxay la soo fadhiistaan xeer maanaan lahaan jirin oo ismaanaan siin jirin nin maanaan bixi jirin geel baan kala qaadan jiray wiilashuna wajintooda jaadka iyo beladoodaasi ay wacaysanayeen inta difaac galaan waxay imaanaysaa marka in haddii ilaahay kuu run yahay nin baa la raadinayay wax ka badan halaaga meesha ay yimaadaan baa imaanaysa waxyaabahaasoo kale waxaan isla raacnaa xalxalliya laakiin waxaan rabnaa saakayto wax ka fiican baan rabnaa ninkaa gacan ku dhiglaha cararay oo biqayri xaqa qofka ku dilay oo dhiigga ku daadiyey oo dadka muslimka oo dhan inuu dilay haddii ilaahay kuu run yahay la midka ah ninka difaaca iyo meesha uu galo iyo kan qariyo kulli inaan weerarnaa rabnaa wixii soo gaara mas-uuliyaddooda ayagaa iska leh waxay geystaanna dushooda wey haddaan taa la isku raacinna subax kasta annagu ka soo noqon mayno intuu xero galo subax walba ka soo noqon mayno subax dambe oo aan ka soo noqonayna lama arko saaka waxaan rabnaa inaad tirahdaan bismillahi raxmaan raxiim qaraf noogu siisaan haddaa qaraf noogu siisaan waa la jaqabsanaynaa qarjaftaan ku haynaynaa qarjaf in nooga turmayno hadalka waxaa laga yaabaa bini aadan baa nahay inaan waxaa reer maray baa dhici karta oo xumeeya ismaanaan lahayn in ilaahay nagu aadiyey meeshii toosanaydna waa dhici kartaa dantii aynu kala hayno waynu gaaray 4 qodob oo guddiga amnigu idiin soo jeediyey oo ay u arkeen masaaliix inay magaalada u tahay guud ahaan gobolka oo aan cuqaasha iyo dadka waxgaradka kala tashanay iyo culimada iyo aqoon-yahanka iyo ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan aad ugu faraxsanahay inaad noo ansixiseen oo aad nagu taageerteen oo aadna aqbasheen aad baan ugu faraxsanahay waxaan idinkaga mahadcelinayaa taageeradiinna waxaan idinkaga mahadcelinayaa aqbalkiina waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida la jecelahay idinkaga hayso dalkiina iyo dadkiina sababtii intaan oo labeen aan u soo xulanayna sababtaas ay ahayd waxaa la yiri geed haddaad aragtid qoyaankii ka batay in hal bislay soo qalalan baa hoosta la yiri waxyaabo badan oo bini aadamku uu dardareemaya waa jira sida haddii hadal la furo laakiin hadalku gobo uu dhintaa hadalka dulucdiisu waxay ahayd xalkina waa isla afgaran waxyaabaha yaryarka oo jira oo aad sheegteen inaan saxno
mas-uuliyaddeeda annagayna saaran tahay waa markii horena waa ka soo wada hadallay oo waa dareemaynay xanuun inay idinku hayso nin ciidanihi asagoo ku gabanaya shaarka dowladda qofkuu rabay inuu dilo wax saxa ma ahan sharcigaana la horkeenayaa sharciguna ma qabo in qof kasta la iska dilo haddii qof la dilaya la ogol yahay sabab aan dilka wax xaaraantinimayno miyaa imaan lahayd haddaan dilba xaaraantinimaynayna sabab qof kale uu xalaal ugu noqdo dil xaqdarro ah ma jirto nin ciidan ah oo u fasaxan qofkuu raba inuu dilaa ma jiro sabab uu ku dilaana ma jirto laakiin howlgallada lagu ansixinayo ama lagu sugayo ammaanka ciddii ka hor timaado dee ciidanka la diriirta weeye waxaanoo ka hadalay oo ciidanka laysa oo qoryo ula soo baxda oo gacan ku dhiglaha hoosta gashata oo difaacada weeye waxaan ka hadlaynay annagu dad in la iska weerara ma ahan waa ku mahadsantihiin hadalku nuxurkiisu waxa weeye waxaan idinkaga mahadcelinayaa 100% inaad noo ansixiseen inta dhimanna annaga dhammaystirayna shaqadayada waa qabsanaynaa marka hore waxaan idin noogu qarabsiiya waa la jaqabsanaynaa markaasaan qarshafta ka guraynaa mar haddaad marka qaraf noogu siiseen insha allahu tacaala annaguna waa la jaqabsanaynaa wax allaale wixii naga hor yimaada waxa weeye caana ka dhantaasaa soconaysa insha allahu tacaala wiilka la celin waayey caagada iyo mijinta jaadka isku watow nabadoonkaaga waa seex cagaha dhulka dhig haddaad caagaha dhulka dhigin hadda waxa weeye caanahaad ka dhantay waxba naga siin annaga waa la saxiixay waa isku dhamaatay wax dambe oo ninkii dhaqaaqa waxa weeye waa loo wada jeedaa reer aan ka gabanayna ma jirto reerka inta wiil dilo wiilkooda ku cararo wallahi idin ka gaban mayno dalaq baa idin soo leena hadeer banaanka iska mariya in ka badan baa dhimanaysa wixii meesha ka dhacana mas'uuliyadda idinka qaadaya kulli reer ma ahan oo reer waxa isku wada raaci kara ma jiraan laakiin hadde waxa weeye waa geedka qoyan in badan hal bisla isla hoosta loo reer walba baladu waa isaga jirtaa reeraysa ku jiraan lama arko marka anagu meel kasta oo galo waa uga dabagelaynaa meel kasta oo galo waa uga dabagelaynaa idinkana waa idinkaga mahad celinaynaa guul iyo barwaaqaan idin rajaynayaa ramadaan mubaarak allah inoo barakeeyo bishii cibaadadan ku jira mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ramadaan mubaarak guud ahaan dadka gobolka mudugna waxaan u rajaynayaa nabadgelyo iyo baraaro caafimaad nabadgelyo iyo inagoo gacmaha isqaybsanna midnimo iyo wadajir baa ina deeqa qabiilku aan ka tagnaa ina deeqa waxaynu u soconnaa inaynu horumar gaaro oo dekadaha iyo wadooyinkan waaweyn aan dhisanay iyo laamiyadan iyo inaynu wax ka faa'iidno oo adduunka la jaan qaadnaa la rabaa haddaynu meeshaas madow oo mugdigaayo dadka lagu dilayo oo khamrida lagu gadayo oo dhulka lagu dhacayo oo geela lagu boobayo oo gabdhaha lagu kufsanayo raali aan isaga noqono meesha miyaan u gudbi karaa dadka hadduusan aqoonin meesha uu u socdo oo uusan isu sheegin meesha uu u socdo waa habaabaya horta meesha u socono waa meeshaas keena habaabayna ka leexan horay inaynu socono waa inoo ballan ah nabadgelyo aynu ku wada noolaan caafimaad baa ilaahay idinkaga rajaynayaa ramadaankiisa iyo ramadaanna badan baynaad caafimaad iyo nabad ku gaartaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu